dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar bin Khadaab ayaa maanta waxa uu soo xidhay tartan kubadda cagta oo ka socday dugsigaasi xalfada soo xidhitaanka tartanka kubadda cagta ee ka socday dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar bin Khadaab waxa ka soo qayb galay maamulka dugsiga maamulka golaha deegaanka ee degmada Boorama maamulka gobolka wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa uu horeyntii halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Cumar bin Khadaab waxaana uu yiri taariikhda dugsigan horta markii ugu horeysay waxa la aasaasay sanadkii 1994 amudaha aad iyo aad u dheer ayaa laga joogaa run ahaantii wuxuu ka mid yahay dugsigan dugsiyada ugu facaweyn magaalada Boorama dugsiyada breakfast-ka marka la yiraahdo muddo badan soo shaqeynayay waana dugsi run ahaantii casri ah oo la jaan qaadaya dugsiyada marka ku yaala mandiqadeena run ahaantii waxa dugsigani ardayda siiya waxbarasho tayo leh oo aad iyo aad u wanaagsan waxa kale oo had iyo jeer dugsigani oo ardaydiisa maamul iyo macallimiinba ay kula dadaalaan in markaasi si macnawiya ay u dhiirigeliyaan tanina marka maanta aan u fadhinaay waxay ka mid tahay dhiirigelintii ardayda aanu sameeynay maxaa yeelay ciyaaruhu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ardayda macnawi ahaan loogu dhiirinayo oo hadii waxbarasho toos ah ardayga sanadka oo dhan lagu hayo xaqiiqdii ma yar fiicna waxa weeyaan inuu appetite u helo waxbarashadii ayaa laga maarmaana ciyaaruhuna marka waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha appetite-ka waxbarashada u furaya ardayda ayaabay ka mid yihiin run ahaantii anagu ka dugsi ahaan waxaan ugu doorbidnay in aan ardaydayada ciyaaro u sameeyno waxa ka mid ah waxyaabo badan oo faa'iido ah oo ay ciyaaruhu ardayda u leeyihiin ama qofka sportiska ah ee ciyaaraba ay faa'iido ugu jirtaa sidoo kale aguna waxa hadalka iska daba qaatay maamulka gobolka iyo kan degmada waxaana yiraahdeen runtii iskuulkan Cumar bin Khadaab kulli aniga iguma cusba haday xaflad noqoto iyo haday bilowgii noqoto markii Cabdi Wahaab iyo asaasiyeen oo xasuusan karo xaaladii ay ku bilaabeen ardayda ay ku bilaabeen dhismaha ay ku jirayeen iyo heerka ay maanta marayaan alxamdulillah wax Ilaahay loogu mahadnaqo Ilaahay ka sokoona waxa iyaduna inaanu mahadnaqno ugu hambalyeeyno improvement-ka ay sameeyeen iyo horumarka ay sameeyeen macallimiinta iyagoo isku duuban dhamaantood aniga kala qaad qaadeen iskuulka Cumar bin Khadaab talabaad midda labaad iskuulka Cumar bin Khadaab wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu cadcad xagga waxbarashada akhlaaqda nidaamka marka aynu ka hadlayno gobolka oo kaalmaha maxaan ku leeyahay nationalka ee wadanka mar walbana waxa kaga jira kaalmaha ugu horeeya ardayda kaga jirta marka imtixaanka dugsiyeedka sanadkii la shaacinayo ama ku hoose ha noqoto ama ku dhexe ha noqoto imkana kuwa sare u gudbayba ha noqoto taasina waxa weeyaan iyaduna waa waxa weeyaan wax Ilaahay loogu xamdiyo ciyaaraha runtii way qurux badnayd inaan ku yeelano bilowgeedii iyo intuu socdayba kaalin ku yeelano oo ay noqono inaan xafladaha ka dhex muuqano runtii insha Allah taasina dib u dhici mayso sanadka kale hadii Ilaahayna wada gaarsiiyo kaalin weyn baan ku yeelan doonaa iskoolada oo iskoolada iyo dugsiyada waxa weeyaan meesha laga soo bilaabo mudan in dhalinyarada laga soo dhiso oo maanta aanu kala soo qayb galnay munaasabadan ku saabsan ciyaaraha oo oran karo dugsigaasi waxa uu sameeyay inta badan aan goobjoog u ahaa ama on maamulkii dugsiga saaxiib aan kala ahay in badan aan kala sheekeysanayo aanan ogahay ku noolahay gobolkii Awdal in dugsigaasi wax badan uu ku soo kordhiyay dhinacii waxbarashada maantana ay ku jirto in qaybtii ciyaarahana ay ka qayb qaadanayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka dugsiga iyo ardayda waxa wanaagsan ay qabteen ee ku saabsan munaasabada ciyaaraha ee muddada soo socotay waxaan ku boorinayaa dugsiyada kale ee gobolka in iyaguna ay ku daydaan guntiga gabagabadii munaasabadaasi waxa soo afmeeray wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo dardaaran u jeediyay maamulka dugsiga kuna amaanay horumarka ay u talaabsadeen ayaa waxa uu yiri marka horena anigoo wasaaradda waxbarashada joogay imikana markii ugu horeysay xaflad gobol ka dhacaysa oo ku saabsan hawsha imikaan u igmanahay u igmaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Xamuud Siilaanyo inaan kaga soo qayb galo dugsigan Cumar bin Khadaab ee ku yaala gobolka Awdal aad iyo aad bay farxad iigu tahay
hore la idinku sheegayba xidhiidh weyn baa ka dhaxeeya oo waxaba weeyaan manhajka laftiisa gaar ahaan dugsiyada dhexe sanadka waxa ku jira maadada BA-ga ama physical education la yiraahdo oo yani si cilmiya loo sii gudagalayo sportigi oo ardayga sababta looga soo bilaabaya ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada sare jaamacadaha nooca loogu sameeynaya ardaygan dugsiyada dhiganaya waa arday aan kubaduun laagaynay academic oo waxan si cilmiyaysan waliba u dhigtay weey isku soo wada duubo markii ay soo idlaatay munaasabadani ayaa ardaydii ku guuleysatay tartanka kubadda cagta ee ka dhex socday dugsiga hoose dhexe sare Umar bin Khattab waxa la gudoonsiiyay koob iyo sidoo kale jawaa'is kala duwan waa Shucayb Maxamed kaan Shucaybiga television madaxa bannaan Bulsha TV magaalada Boorama